بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan naga daawanaysan waa YouTube channelkeena Engineer Ibra Osman iyo sidoo kale Facebookgeena ENG Ibrahim Osman. Muuqaalkan kooban sida thumbnailka sare ka soo aragteen ama titleka videoga waxaan ugu magac darnay You will never click on links after this tutorial oo wax linki oo dambe ma gujin doontid ama kuma dhufan doontid casharkan kadib. muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan kaga hadlo qayb ka qusaysa security-ga inuu xooga saari doono secret hacking site wax la yiraahdo ama website aan dad badan ogeyn oo hacking naftirkiisa siyaabaha hacking-ka qofka loogu sameeyo ka qayb qaata dad badanina aanay ku baraarugsanayn. si kooban haddaan u yar dulmaro sanadkan ama muddooyinkan dambe dunidu waxay tahay mid si baahsan loo wada isticmaalo internetka oo maalinba maalinta ka dambeysa ama muddo kasii dambeysa aad moodayso in internetku marba sii sameeyo expanding oo dunida oo dhan ku sii faafayo. waxa muhiim ah marka in internetku dheefna leeyahay dhibna leeyahay advantages and disadvantages. dheeftiisu waa badan tahay dhibkiisuna ma tiraya yara. marka dhibkiisa waxaa kamid ah tusaale linkigan aan maanta ka hadlayno waxay kamid waxyaabaha dadka lagu siro waliba dad waxaa jira qofka hadduu IT barto oo kale waxa laga yaabaa in security-giisa uu avoiding badan uu sameeyo ka hortag laakiin dad waxaa jira aan ku baraarugsanayn aqoon saasana aan u lahayn ama aan dabagal ku sameyn security-ga iyo qaabka loo xoojin karo qofka sirihiisa. marka dad iyaguaasi waxay ka faa'iideystaan inay linkiyo qofka u soo diraan linkiskaas haddii qofkaasi uu ku dhuftana ay ogaan karaan IP address-kiisa iyo waxyaabo la mid ah. marka halka laga hadlayo qofka computer-ka isticmaalaya ama mobile-kiisa haddii la helo IP address-kiisa hacking in lagu sameeyo aad bay u fududaanaysaa. marka sidaa darteed waxaan isla eegaynaa website gooniya oo ay dadka noocaasi u adeegsadaan in ay ku ogaadaan qofka IP address-kiisa iyo xog la mid ah. sidoo kale intaynu muuqaalkan ku dhex jirno waxaynu istusi doonaa qaabka looga sameyn karo computer hadday tahay iyo hadday mobile tahay talooyin qofku kaga hortagi karo iskagana ilaalin karo farsamooyinka noocan ah. iminka waxaan kasoo gelaya qaybta computer-kayga ayaan soo gelinaa stepskeena waynu bilaaban doonaa. iminka waxaan joogaa shabakadda Google ayaan joogaa. waxaan rabaa marka inaan qoro website-ka dadkani website-dada ay u isticmaalaan in linkiga ay qofka u dirayaan ay ku sameeyaan tracking ama trace oo ayna qofka ku dabagalaan. marka ugu horeysa qofku Google-ha uu soo galo iyadoo browser-ka xagga sare search ku oran karo ayuu wuxuu sameyn karaaba inuu qoro Grabify kadib linkiga horeeya soo baxay ku dhufanayaa search ayuu leeyahay. qaybtan haddaad aragtaan waxa soo baxay Grabify IP logger and URL shortener. marka Grabify-kan waxay u isticmaalaan in linkiga qofka loo dirayo la soo geliyo linki lagu dabagelayo meelaha uu galay waxyaabo la mid ah. isaga haddaan sii galno website-kani sidan ayuu marka hore soo baxayaa. hadda wax yar hoos u dego waxaad aragtaan daaqad xaggana inay tahay enter a valid URL or tracking code. marka bartan waxaa la gelayaa linkiga qofka la doonayo in lagu dabagalo. marka linki baynu soo qaadanaa tusaale ahaan halkan waxaa ku qoran youtube.com oo kale waxaan ku qoranaa YouTube. marka muuqaal YouTube-ka ku jira haddii doono mid channel-keenaba kamid ah ayaan soo qaadanaa linkigaas aynu qofka xogtiisa ku dabagelinaa. halkan ayaan waxaan soo gelin doonaa magaca channel-keenan kadib muuqaaladan meesha yaala mid kamid ah ayaan soo furi doonaa. kadib qaybta sare ee linkiga ayaan soo koobiyeynayaa oo ah muuqaalkan linkigiisa ayaan waxaan leeyahay copy. kadib website-kii ayaynu ku soo noqonay. waxaan rabaa marka inaan casharka aynu hadda soo qaadanayo videoga in qof aan linkigiisa u dirno kolka linkiga ku dhuftana aynu IP address-kiisa si fudud ku helno iyo macluumaad kale. halkan ayaan ku paste garan doonaa kadib waxaan leeyahay create URL oo ah linkigii aan ku dabageli lahaa ii samee. wuxuu ku weydiinayaa inaad ogolaato. waxaan leeyahay waan ogolahay in aan sameysto URL-kan qofka aan ku dabageliyo ama linkigan. daaqad noocan ah ayaa kadib ku soo baxaysa. waxay haddii aan hoos u dego qaybtan waxaad aragtaan inay ku qoran tahay list dheer on laakiin wax information aan gudaheeda ku jirin. marka qofka waxaad ogaan kartaa taariikhda uu furay, waqtigiisa, IP address-kiisa, waddanku joogo, user-ka iyo website-dada programku ka gelayo. ISP internet service provider oo ah shirkadda internetka isticmaalaya iskale. hadduu isticmaalayo tusaale ahaan deegaankan joogno waxaa laga isticmaalaa Somtel, Telesom, Golis, Soltelco. marka shirkadaha golista oo kale hadduu isticmaalayo internetkeeda ISP-daas ayaa lasoo hoos dhigaya. marka waxaa loo baahan yahay xogta hadhow ayaan arki doonaa qaybtan hadda si fiican u eegtaan ay ku qoran tahay new
URL oo ah linkiga cusbaa copy ayaa ka agdhow. Copyda haddii aan ku dhufto waxaan iminka diyaar ay u tahay inaan qofka u diro. qofku markuu kusoo dhufto maxaa dhici doona? xog ayaa qaybtan lasoo gelin doonaa. Markaan isla socono iminka daaqad cusub ayaan furanaya. linkigii aan hadda soo koobiyey ee aan u taagnaa inaan qofka u diro ayaan baasti garaynayaa. kadib waxaan tijaabinayaa qofka meesha uu geeyo. waxaad aragtaan in uu soo galay youtube-kii uu soo dhex geeyey linkigii qofka aan u dirnay. isla youtube-kiina casharka aan marka hore soo gelinay uu keenay. haddii linkiga qofka uu eegana wuxuu ka shaqeeyaa maaha korkii waxaa linkigii waxaa ku qoran waa youtube-kii. marka daaqadii cusbeed baan ku noqonanaa. iminka waxaan aragnaa in qofka si caadiya uu arkayo in loo soo diray muuqaal. haddii uu daaro xitaa uu saa ku shaqeynayo. laakiin maxaa qofka kale ee linkiga soo diray isaga la gudboon ama uu arki karaa ama uu samayn karaa? xogta uu helaya inuu eegno. daaqadii website-ka ayaan kusoo noqonayaa. hal mar waxaad aragtaan halkan sare inay weli bannaan tahay ay maran tahay, laakiin hal mar waxaan dhihi doonaa refresh. right click ayaan siinaya. kadib waxaan leeyahay refresh. kadib macluumaadkan helo ayaan eegi doonaa. waxaad aragtaan in dhammaantood daaqadihii lasoo geliyey xogtii lasoo bixiyey. hadda datekan oo kale waa xilliga qofku uu furay linkiga, taariikhda saxda. halkan oo kale waxaa ku muuqda IP addresskiisa noocu yahay, kaasoo loo isticmaali kara xitaa qofka in computerkiisa lagu jabsado waddanka uu joogo iyo magaalada uu kasii joogo. halkana waa nooca Windows-ka ah iyo browserka uu internetka ka isticmaalayo. sidoo kale xaggan waxaa ku jira hostname-kiisii oo ah isna IP addresskiisii, ISP oo ah shirkadda internetkeeda uu isticmaalayo. marka qaybtan wuxuu qofku markaa uu awood u leeyahay inuu ogaado browserka isticmaalaysid, magaalada joogtid, IP addresskaaga, saacadaada, shirkadaada internetkeeda isticmaalaysid, macluumaadkaas oo dhan si fudud ayuu ka helayaa. marka qofkan waxaa u fudud inuu IP addresskaaga mar hadduu helo uu si fudud hacking kugu samayn karo. marka si aad macluumaadka nooca aan looba helin waxaad iska ilaalisaa linki aadan iska hubin in aad furto. sidee looga hortagayaa? marka aynu haysano computer oo kale waxaan jira program ka caawinaya link walba aad gelisid haddii uu halis yahay haddii kalena kuu sheego. anigu waxaan isticmaalaa layihahdo Avira ama Avira security oo ah VPN ahaana uu shaqeeyayo. wuxuu ka caawiyaa qofka inuu ku sameeyo security-ga u adkayo computerkiisa haddii uu gelayo website-dada laftirkooda oo internetka kasoo gala. kuwooda security-ga ah uu u kala sheegayo kuwa aan security-ga ahayn. marka barnaamijkaas aad computerka ku duubanaysaa waynu ku tijaabinaynaa in linkiga markaynu gelayno inuu inagu yidhaahdo linkigani waa halis iyo inuu inagu sii fasaxo. marka waa Avira Phantom VPN barnaamij kuu hubinaya security-gaaga ku adkeynaya, website-yada laftirkoodana kaa caawinaya. sidoo kale wuxuu ku siinayaa virtual location position ama meel aadan joogin oo mala awaala. marka programkan iminka waan soo kiciyey, waxaan idiin soo dhigi doonaa aad kala degi kartaan qaybta hoose description-ka. halkan waxaa igu qoran secure my connection oo ah ammaanka isgaarsiinteeda aan isticmaalayo, ammaankeeda isug. click ayaan siinayaa. marka wuxuu ku xidhayaa boos ama magaalo ama location aadan joogin oo laakiin mala awaala ayuu siinayaa si internetka dadkan kaaga ugaarsanaya laftirkooda linkiga beenta kusoo diraya ay ugu khalkhalaan location-kaaga saxda ah. iminka wuu ii furan yahay location ayuu i siiyey. marka waxaan eegaynaa browserkeennii baan ku noqonayaa. waxaan soo eegayaa linkigii markii dhaweyto oo kale haddii website-ka caadiga aan soo galo inuu ii digo iyo inuu igu sii daayaan fiirinaya. linkigii markii hore la ii soo diray ee youtube-ka ayaan gelayaa. marka waxaad aragtaan qaybtan inuusan si toosa uusan u gelayn oo uu leeyahay dib waa lagu darayaa. marka aan hore usii galo haddii aan idhaahdo maxaa dhici kara? waxaa markiiba la furayaa muuqaalkaygii. laakiin haddaan qaybta computerkayga sare aan galo barnaamijka Avira aan ku dhufto xagga waxaa ku qoran unsafe website oo ah website aan ammaan ahayn. marka halkan hoose waxaa taalla warqad ay ku qoran tahay take me away. war meesha baliga kaxe waa ku dhufanayaa. marka iminka maxaa dhacay? daaqadii linkiga aad furi lahayd oo dhan waa laga noqda. waa haddii aan ogolaado aan ku madaxdayga idhaahdo war waan gelaya waxa la soo diray uu ii gudbinaya. laakiin qaybtan waxayaan haystaa barnaamijka halkan ii yaala Avira. marka haddii aan ku dhufto website-kan inuu sax yahay in kale ayuu kala sheegayaa. marka maxaa ku qoran? website-kii linkiga laga soo diray ayuu ku siiyey. sidoo kale wuxuu ku yidhi waa unsafe website-kani ammaan maaha. sidoo kale xaggan wuxuu ku dhigay warqad ay ku qoran tahay take me away oo ah website-kan iyo iga kaxe hadday halis tahay. marka muxuu samaynayaa? haddii aan ku dhufto daaqadoo dhan buu iga saarayaa. waan ku dhuftay daaqadii halis tahayd sidaasaa lagaga saaray. marka barnaamijkan marka aad
soo install garayso oo aad ku duubato computerkaaga laba qaabba waad u isticmaali kartaa. Koowaad wuxuu ku oolayaa markaad soo furtid qaabkan shaashadana ku oolaya. Haddii aad iskaga baxdo xitaa shaqadiisa background ahaan buu u wadayaa, laakiin browserkaaga waxaa loo baahan yahay marka koowaad isaga wuxuu isku soo daray qaybta extension-kana waxaad ka soo eegaysaa inuu kugu jiro menu-ga midigta 3 dhibcood ayaad ku soo dhufanaysaa. Waxaad raadinaysaa meel ku qoran tahay extension. Waa kan extension-ka ayaan ku soo dhufanayaa. Halkan ayaan arkaa inuu jiro. Haddii uu kuusan muuqanayn uusan halkaa sare kaaga muuqanayn sida kayga uusan ku ool, ishan ayaa kaa qarsoon. Marka isha ku dhufo. Barnaamijkan sidaas ayaad ku hubin kartaa ammaankiisa marka computerka laga isticmaalayo. Mobile-ka laakiin marka ay noqoto waxaad samaynaysaa isna waxaad ku soo dejinaysaa barnaamijyada kala duwan ee VPN-ka. barnaamijyadaas oo ka caawinaya laftirkooda in ay ku furaan sidan shaqadan hadda ay ku qabtaan. Iminka waxaanu isla eegnay qaabka ammaanka loo sugayo, khataraha la iska ilaalinayo, linkiyadu leeyihiin la isku soo diro. Aynu ku tijaabinay programming oo isticmaalayna iyo sida uu shaqeynayay. Mobile-ka haddii ay noqotona sidoo kale waxaad la soo degi doontaa VPN. waxaa jira qaybta hoose description-ka waxaa idiin soo dhigi doonaa magaca VPN mobile-ka laftirkiisa ku shaqeynaya. waxaan idiin soo dhigi doonaa qaybta hoose description-ka halka ka akhriso kala soo deg. Mobile-ka laakiin dadka isticmaala mid baan yaga tala gooniyan halkan u marinaya oo ah haddii lagu soo diro linki oo aad qofka ama ku kalsoonow ama aad ku kalsoonaan aad linkiga iskaga dhufato ama mar walba adoon linkigii ka fikirin aad gasho waa halis weey. mar walba aad internet isticmaalaysid aad mobile-ka isticmaalaysidna waa inaad haysato barnaamij VPN ah. VPN-ka ugu wanaagsan magaciisu waa nooca shaashada imika idinka muuqda. Mobile markay noqoto kula soo deg kaliya wuxuu kaaga baahan yahay in aad furato kana u isticmaala ammaanka inaad ku sugtaan mobiladiina. linkiskana taxadar weyn ha loo sameeyo in lagu dhufto. muuqaalka ma jecla inuu dheeraado, intaas ugu soo koobayaa. kuma eekayn karno hal muuqaal, kumana filna hal muuqaal in laga hadlo arrimaha noocan security-ga quseeya. laakiin waxaan isku dayi doonaa insha Allah inta karaankayga inaan ka diyaariyo muuqaalo fara badan oo taxana ah. muuqaalkana dad badan oo waxaa jira dheef uu noqon karo ka faa'iidaya. haddii aad adigu daawatay la sii share garee. waajibaadkayga aniga wuxuu ahaa inaan video soo diyaariyo dadka iyo ardayda igu xiran ama internetka isticmaashaana hal qof xitaa hadduu ka faa'iidaysanaya aan la wadaago. laakiin dadku laftirkooda iyagaa loo baahan yahay sii share gareeyaan oo waxaabay jirtay oraha ahayd sharing is caring. marka halkaasaan ku joojinayaa. muuqaalkana la wadaaga asxaabtaada wixii fikir qaybta hoose noogu reeb. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.